يا أيها الذين آمنوا كو إلهي رسولك سرمينو لا تتخذوا اليهود يهودها كسما يسننا إيو النصارى دي أولياء كو الحريرسان oo arrinkiina aad u dhiibataan ha ka samaysanina maxaa yeelay bacduhum ayaga qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale kuwa xiriiriya ayagaa isxiriiriya ayagaa isjecel laakiin adinku ha ka dhiganina dad aad xiriirisaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka soo hadlay yahuudda iyo nasaarada dhibaatooyinkii ay u geysteen ambiyadii gaar ahaan rasuulkeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh iyo khiyaanadii ay ku sameeyeen kutubtii ilaahay u soo dejiyey oo ay taxriifiyeen kutubtii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yahuudda iyo nasaarada sidaa u dhaqmaya oo ilaahay ku kufriyey oo ambiyadii iyo rusushiisii ku kufriyey ha ka dhiganina dad aad xiriirisaan oo xogtiinna iyo sirtiinna aad u dhiibataan maxaa yeelay bacduhum ayaga qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale kuwa xiriiriya ayaga awliya isku ah oo isxiriiriya oo arrimahooda maamula waman yatawallahum qofkii ka weli dhigta oo talada u dhiibta qofkaasoo minkum adinka idinka mid ah fa innahu shakhsigaasi minhum ayaga ayuu ka mid yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay qofkii yahuuddaas iyo nasaarada isaga tawalli ka dhigta oo taladii u dhiibta xogta iyo sirta u dhiibta qofkaas wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala iyaguu ka mid yahay yacni yahuuddii iyo nasaaradii ayuu ka mid yahay haddii hadda markaa caqiidadoodii uu raalli ku noqday oo kufrigoodii uu raalli ku noqdana hadda gaal cad ayuu noqonoo xaqiiqi ah haddii laakiin intuu xidhiirinayo xogtii iyo sirtii u dhiibanayo laakiin caqiide ahaan markaas uusan ku raacsanayn oo caqiidadoodii uusan raalli ka ahayn markaas wuxuu galay dembi halis ah oo kabiiro ah laakiin ma gaaloobayo waman yatawallahum qofkii weli ka dhigta minkum adinka xaal qofkaasi uu idinka mid yahay fa innahu shakhsigaas minhum ayaga ayuu ka mid yahay walidaalika waxaa soo arooray sayidina cumar bnu alkhadaab ayaa hadda ka hor abu muusa alashcari markuu u dhiibay dhulkan basra oo gobolka maamul uu yidhi ayaa abu muusa alashcari nin nasaarada ka mid ahaa ayuu wuxuu u dhiibtay qaybtii xisaabta u dhiibtay xafiiskii gobollada wixii ka soo baxa dhaqaalahooda laga xisaabi jiray xafiiskaasuu u dhiibtay sanadkiiba mar ayaa marka uu isugu yeeri jiray dadka gobollada madaxda ka ah sayidina cumar marka abu muusa alashcari u yeeray wuxuu yidhi xisaabtaadii soo gudbi markaasuu wuxuu yidhi xisaabta waxaa haya sayidina cumarna markaas masaajidkuu ku dhex jiray xisaabta waxaa hayuu yidhi nin masaajidka iriddiisa taagan markaasuu yidhi ha soo galo si xisaabta uu maaragtaa u soo gudbiyo markaasuu yidhi abu muusa alashcari ma soo geli karo masjidka oo janaabo miyuu qabaa ma junubu maxaa masjidka ka celinayo yidhi sayidina cumar janaabo miyuu qabaa markaasuu abu muusa alashcari wuxuu yidhi mayo janaabo ma qabee waa gaal weeyo xisaabtuu noo hayaa marka sidaasaana masaajidka yani uusan u soo geli karin sayidina cumar markaasu wuxuu ku yidhi laa tu'amminuuhum fa ina allaha qad khawanahum nimankaa gaalada ammaan ha ka dhiganina waxna ha u dhiibanina maxaa yeelay ilaahay wuxuu sheegay inay yihiin dad khaa'iniin ah walaa tuqaribuuhum fa ina allaha qad aqsaahum hana soo dhowaysanina maxaa yeelay ilaahay yaa fogeeyey walaa tukrimuuhum fa ina allaha qad ahaanahum hana karaamaynina maxaa yeelay ilaahay waa ihaanaystay marka qofkii intaas ku sameeya gaalkii wuxuu markaas ka hor yimid ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqiisiiyuu ka hor yimid ha ammaaninina maxaa yeelay aamin ha ka dhiganina maxaa yeelay wuxuu yidhi fa ina allaha qad khawanahum ilaahay wuxuu ka dhigay dad khaa'iniina oo wuxuu ku tilmaamay khaa'iniin inay yihiin walaa tukrimuuhum fa ina allaha qad ahaanahum hana karaamaynina maxaa yeelay ilaahay yaa ihaanaystay walaa tuqaribuuhum fa ina allaha qad aqsaahum hana soo dhowaysanina maxaa yeelay ilaaha fogeeyey subxaanahu wa tacaala marka waxaa weeye xilligaas saxaabada nabigana sala allahu calayhi wasalam wax loo dhiiban jiray oo shaqo ah oo yacni islaamka dadka muslimiinta ay u dhiiban jireen ma aysan jirin lacalla hadday dhacdana way ka canaani jireen abu muusa alashcari waa markaa u dhiibtay sayidina cumaraa ka canaantay mar dambena wuxuu yidhi ninkaan ha u dhiibina nin kale ku bedel walidaalika hadda yani wax hadda caalamka ka jira waxaa weeye dowladihii dadka muslimiinta hogaaminayey in ay xogta iyo bidaanada rasmiga dadkaa gaalada ka dhigtaan mooye
waxay aaminsan yihiin inaysan mas'uucan karin oo aysan shaqayn karin dawladdu waxay ka mid tahay khiyaanada maskaxda gaaladu dadka muslimiinta ah khusuusan dadka xukaamta ah ay maskaxda ka khiyaaneen dadkii gaalada ah iyagiina ay kala qaybiyeen oo isaga dhigeen waxay leeyihiin haddii annaga adna nala saaxibin kaa walaalka ah oo dawladda kale ah kugu soo duulayo oo waddanka kaa baabi'inayo maxay markii hore iyaga kala qaybiyeen inna allaha ilaahay laa yahdii ilaahay ma hanuuniyo alqawma qoom ilaahay ma hanuuniyo qoomkaasoo adaalimiina ee daalimiin ah kuwaasina waa kuwa daalimiin ah fataraa waxaad aragtaa yidhi alle subxaanahu watacaala aladiina kuwii ayaad aragtaa fii quluubihim quluubtooda maradun cudur uu ku sugan yahay dadka qalbiga ka xanuunsanaya dad cudur uu uga jiro qalbiga ayaad aragtaa yusaaricuuna xaal ay yihiin kuwa degdegaaya fiihim fii muwaalaatihim gaalada xidhiirintooda yahuudda iyo nasaarada inay xidhiiriyaan ayay u degdegayaan dadka qalbiga ka jiran ilaahi subxaanahu watacaala aayaddani waxay cillo oo kale u tahay ama sabab ay u tahay annahyu can tawalli lkufaar aayaddii hore waxay nahwisay gaalada in wilaayo loo dhiibto oo sirta loo dhiibto oo la xidhiiriyo ayaa aayaddii hore ay diiday marka sababta dadku ay u xidhiirinayaan gaalada ayaa aayaddanuna caddaynoo ilaahay wuxuu leeyahay waa marad fii quluubihim yacni dadka xidhiirinaya waa dad qalbiga ka jira maraday qabaan oo waxay aaminsan yihiin gaalka haddaysan xidhiirin inaysan wanaagba gaari karin qalbiga marka maradkaasaa uga jira fataraa waxaad aragtaa aladiina kuwii fii quluubihim quluubtooda maradun cudurku qalbuubtooda u ahaaday oo cudur uu quluubta uga jiro yusaaricuuna xaal ay degdegayaan aad arki fiihim fii muwaalaatihim gaaladaas inay xidhiiriyaan ay ku degdegayaan yaquuluuna waxay yidhaahaan ay cillo ka dhigtaan markay gaalada xidhiirinayaan nakhshaa waxaan ka cabsanaynaa an tusiibanaa inayna asiibto daa'iratun musiibada wareegaysa musiibada ifkaan wareegaysa inay dusha nooga soo dhacdo ayaan ka baqaynaa haddii gaaladaas aanaan xidhiirin waxaan ka baqaynaa musiiba inay nagu dhacdo saasaynan dadka qalbiga ka jiran marka waa dad amraadulquluub qaba maxaa yeelay haddii amraadulquluub aysan qabin musiibada iyo maaragtaa yacni wanaagga iyo khayrka dhanba ilaaha haya subxaanahu watacaala ilaahay agtiisay khayr ka raadin lahaayeen ilaahay agtiisay ka raadin lahaayeen cizi iyo sharaf facasa allaahu ilaahay wuxuu yidhi waxaa ilaahay uu mudan yahay an ya'tiya inuu la yimaado bilfatxi furid kuwaan markay leeyihiin gaalada haddaanan xidhiirin musiibaan ka baqaynaa sow ma oga ilaahay inuu la iman karo faraj oo ilaahay fatxi uu furi karo fadrigaas waxaa loola jeedaa nasri dadka mu'miniinta ilaahay inuu u gargaari karo haddii ay ilaahay ay ku kalsoonaadaan diintiisa ay ku kalsoonaadaan sow ma oga ilaahay inuu fatxi u keeni karo aw amase amar inuu ilaahay la yimaado ayaa suurtogala amarkaas waxaa loola jeedaa waa amar iyaga lagu fadeexaynayo dadkii yacni xidhiirinayey gaalada xidhiirinayey arrin lagu fadeexaynayo oo sirtooda bannaanka loo soo dhigaayo arrinkaas inuu la yimaadaa ilaahay dhici karta oo ay ku fadeexoobaan xidhiirinta gaaladii ay xidhiiriyeen amarkaasoo min cindihi ilaahay agtiisa ka ahaaday ilaahay agtiisa in arrinu uga timaado ay ku fadeexoobaan kuwan gaalada xidhiirinaya ayaa dhici karta oo fa yusbixuu markaa kuwa gaalada xidhiirinaya ay ahaadaan calaa maa ay ladii kii korkiisii asarruu ay qariyeen fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda waxay ku qariyeen naadimiina kuwa ka shallaaya ay noqdaan markaas maxay waa fadeexoobeen markii ay fadeexoobaan hadhow shallaytaa ku imaanaysa maxaa idinku watay adduunkii waa ku fadeexowdeen aakhiradii waa ku fadeexowdeen maxaa idinku watay sidaasay leeyihiin xilli shallay uusan wax taraynin ayay shallaayi doonaan jaara majruurkan calaa maa waxaanu ku tacallujinnay naadimiina gadaal fayusbixuu ay ahaadaan naadimiina kuwa ka shallaaya calaa maa iladii kii ka shallaaya asarruu fii anfusihim waxa naftooda ay ku dhex qariyeen ay markaa noqonayaan markay fadeexoobaan inay ka shallaayaan wayaquulu aladiina kuwiina waxay yidhaahaan markay fadeexoobaan aamanuu ilaahay rumeeyey kuwii mu'miniinta dhabta ahaa waxay leeyihiin markii kuwaas munaafiqiintu ay fadeexoobaan oo sirtooda bannaanka lasoo dhigo mu'miniintu waxay leeyihiin haaulaa'i kuwan aladiina kuwii sow ma aha aqsamuu billaahi ilaahay ku dhaaran jiray jahda aymaanihim dhaaryaalkooda tabartooda dhaaran jiray meesha dhaarta tabarta ugu sarraysa kuwii ku dhaaran jiray sow ma ahayn kuwan hadda fadeexoobay
إنهم أيقوا معكم معجنا إليهن إذن لجران وردت كان لفضيحي سو كوي الدنيا مركي لجوغي كل دارن جري مؤمنين تان كمدنا والله مؤمنين تان كمدنا دت وصلنا هوستنا قالي كوتي ورسو دت كان فضيحي كوي الدون كسلا كو أهان جري سو معها مركز المؤمنين تيابيا مركي لفضيحي مؤمنين مركز يابيا ويقول الذين كوي وحيليهن آمنوا إلهي رسولك سرميي هؤلاء كون الذين كوي سو معها أقسموا بالله إلهي هرأوا دارتي جهد أيمانهم داريال كودا انت تبرت دارتي انت أودوا ذا دارن جري إنهم أيقول معكم إلهي معينين إذن الجران كوي دارن جري سوما بل سي ما أنت فضاحدوا دي عوردوا دي سيدي بنانك أتمداغ حبيدة وحا هوبتي أو بابادي أعمالهم أعماشوا دي وي هوبتي وحي أي أعمال سمين جرين هذي هاتي صدقوا هذي تاي بري هذي تاي إحسان وحي هذي تاي صلاة أي دك مؤمنين تسكت تستسايان وحي يدوا ككع محايا لقلبك قال لم يكون هستن قلبك قال هذا سي كحريرين هاي مركا عمل لك ما أقبلين أعماشه دي ودلوا بابادي فأصبحوا مركا وحي نقدين خاسرين دد خساري نقدين مركا إلهي وكدقي سبحانه وتعالى انت أرنكاس وصندعين إلهي وحوليه سبحانه وتعالى كجوك سدى موالاتك كفار تعتكو سمين إنسان يا أيها الذين آمنوا إلهي مركا آيادا وحين وشيغي مركا إلهي مؤمنين توكلي هاي قال هذا حرير هلا سميننا أو كوسرتين هذو الليبتان هكذا ولجدد معها إن إلهي تاس ونفع كهلا إلهي وحشيغي إن المؤمنين فربضا أوليه أو يسقع عابوديسا هدي كواسي أمرك إلهي الديدان يا أيها الذين كوي آمنوا إلهي رسولك سرميانو من قفك يرتد الردوبة قفك أسوى منكم إذن كمدا عن دينه الدين تيسكر الردوبة والدين تيسكر لابته فسوف مرضا لا يأتي الله إلهي الله إيمان دونا بقوم قوم الله إيمان دونا قوم كاسو يحبهم قوم كإلهي أجعلها ويحبون أيقونه إلهي جعل قوم كاسو أذلة جلعسا على المؤمنين ضدك مؤمنين تاه أجلعسا قوم كاسو عزة كؤد أرق على الكافرين قالدنا كؤد أرق قوم كاسو يجاهدون في سبيل الله جدك إلهي كجهاده ولا يخافون أن كبقين مركي جهاديان لومة لائم روح وحدايه إديس أن كبقين قفا إذن آذين إيو قفا وحيدن كشيغي إيو وحبا كبقين إلهي مو يوقفك لي كبقيان مله إلهي سبحانه وتعالى آيادا وحيو شيغي قفك إلهي دينتي سي أوامرتي سكاللابته oo diinta ka ridooba ilaahay uma baahna maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qoom kale oo ilaahay aada u jecel oo ilaahay xidhiidhinaya oo sifaadkaas waaweyn tilmaamahaas qaaliga ah ilaahay uu ku tilmaamay qoomkaa man yartadda minkum can diinihi fasawfa mar dambaa yaati illaahu biqowmin ilaahay qoom uu la iman doonaa qoomkaasoo yuxibuhum ilaahay uu jecel yahay wa yuxibuuna iyaguna hu ilaahay jecel إلهينا وجعلها سبحانه وتعالى أيقنا ربي وجعليهن وصفته وجوه الرئيسي صفة الله واسع قوم كاس إليهن قوم كاس أذلة جلعسا على المؤمنين ضدك المؤمنين تأجلعسا سلا يقولن حريصنا يان سلا يحريرنا يان مؤمنين تأجلعايان قوم كاس وهدنا صفة سدحاد أعزة أدرج على الكافرين قال لنا كواد أدرج وسيد إلهي ودوناي سبحانه وتعالى أي كسر بحين وقال هذا حرير أي لص ميان اسكدها فيه وإحنا حريصة ومهيان ويكواد أدقيهم صفر أفراد قوم كاسو يجاهدون جهاده في سبيل الله جدك إلهي دحيس كجهاده وإلهي كلمة سنة كرنغتنا أي أتاقيهن قوم كاس صفر الشناد إليهن ولا يخافون عن بقين وحنكو عدفنا يجاهدون قوم كاسو يجاهدون في سبيل الله كجهادا ولا يخافون عن بقين لومة لائم روح وحدايه أديس عن كبقين يعني والو آذين وحدا لغا شيغي وحان وحي كفيرين ايان كليا إلهي رالي مكيه أرن كان بس ادكال فيرين ما ين مرضى هديه رديه إلهي سبحانه وتعالى أي كسعودان وحا كلوبنا جملة إنان حالينه قوم كاسو يجاهدون جهاده في سبيل الله جدك إلهي كجهاده
والحال جدك إلهي كجهادة لا يخافون أيسا كبقين لومة اللائم روح أديس أيقون كبقين حالة إذا الصلاة استهي أي جهاد يعني بخلاف جهاد المنافقين منافقين الجهاد كوذا خلاف سنمحايلة فإن المنافقون يجاهدون وهم يخافون لومة اللائم منافقين استسوا سيد دقالك وتجيرين مرك حتى هذه حلق النبي صلى الله عليه وسلم أي راهان اسمه جيان صفقة وانقلينا وحي صفقة أقلايان خوفا من لائمة اللائم قف دينا يدي سيئو كبقايان وحي سلين جهاد كادات كهرتان وحالي ليه قالت لجرتان مرك كوان صفة اسمها ولا يخافون مرك جهاديان والحال أي جهاديان لا يخافون أي سنبقين وفعل مضارعها ومنفي بالله لا نافية لا حريرية ومرك الله حالي مضارع مرك لا نافية هدي لا حريرية حالة الحالين أيو سيدا يعني راجحة ويبنانتها هاي محايا لي مركزنا حالة وحال لا حريرية واو هي ضمير وذجرة لبدي ولا حريرية واو ولا يخافون هي ضمير كي لبدي ولا حريرية ابن مالك رحمه الله تعالى يسوي مسألة الفيدنا وكبني أو كأقلاد وحوليه هي فعل كمضارع منفي بالله ويبنانتها إن واو لا حريرية إن ضمير كينا لقد حالة رابط كيدي لقد ضميرنا ويبنانتها كتب كلنا قاركودنا وكديد marka laba madhab ku leeyahay laakiin sida raajixa ah way banaantahay sida aayadana way ku timid way banaantahay jumlada xaalada oo ficilka mudaaric la naafiya la xiriiriyay in markaas waaw la xiriiriyo damiir la xiriiriyo labadooda lagu kulmiyo inta way banaantahay وجملة الحال سواء ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما أنت سوق لي أسوي ضمان بالكاس وكود أروي إلا مركز روح سو شيء وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما مركز هالكاس يعني الفيديو وكو قال لكن كتب كله أو كدي ليس تسهيل كان واجرا والحال لا يخافون أي سنبقين لومة اللائم روح وحيديه يديس أي سنكبقين أي جهادا يعني ذلك المذكور متكاس للسوء شيء أو صافتي ودنا له علم من محبة الله إلهي إنه يجعلهن والذل على المؤمنين مؤمنين إنه يجعل عسيني والجهاد في سبيل الله وعدم الخوف وحاسوضا وفضل الله إلهي فضل يسوع يؤتيه فضل قاس إلهي من روحه سيا روحه يشاء دون أيه محايل والله إلهي واسع من فضل يسوع بلارين هيوي عليم علم بلن إنما وليكم الله ورسوله ما دام إلهي سبحانه وتعالى كولي قال هذا إن ولي لقد اكتوء سود ديدي إلهي وحو تلمامي ماشا وجعل يهي أو ولي لقد قناي ماشا ولي لقد قناي وضدك مؤمنين لو أقول يهي إني حريريان إنما إن كلمة هاني وليكم أدنك وليينه الله إلهي ورسوله إلهي رسول كيسيو والذين واكوي آمنوا إلهي رمي انتاس ولي كدكتو قال دي تولي قول ما دام السيد دي محايلي الله سبحانه وتعالى ما ينهى عن شيء إلا ويجعل له بديلا إلهي وحمنه إيه إلا وح بديله إلهي بن عبدالله وح إلهي كاريبه وح بديل كيدو إلهي سينا قفك سبحانه وتعالى ولذلك مركي تولي كفارة إلهي وسوانه إيه بديله إلهي دتك مؤمنين تسي تاسونا يعني أي وكافتون كران إنما إن كلمة هنه وليكم أدينك وحا ولي إذين الله ورسوله إلهي رسول كيسي والذين كوي آمنوا إلهي رمي صدح ذا سولك بكتور إلهي سبحانه وتعالى وإلهي ورسولك صلى الله عليه وسلم إيه دتك مؤمنين تعه صدح ذا سولي إذين الذين مؤمنين تاسو يقيمون صلاة أوغة وعبادة كددارة كواس حريرية ويؤتون الزكاة نبحية والحال أي صلاة الزكاة والحال أي زكاة بحيان هم أيغو راكعون أيهين بمعنى خاشعون أيغو خشوع صن أي زكاة بحنايان أو ده يوم الذين كأقبل الدونا مثل الذين كما أقبل الدون أيغو متكبرين إسلوين زكاة بحن مايان ومركي الركوع أن نكبرنا بمعنى الخشوع والخضوع والتضرع إلى الله إنه نجهده بمعنى الخضوع والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أي اللي نجهده ومركز يعني خشوعي هي waxa lagu shabahay rukuuci lagu shabahay
محايا لقفك مركو الركوع سيهي إلهي يسد الله سبحانه وتعالى مركز كذا بحنايان ايغو خشوع سن أما هديك للركوع حقيقة لقد دقوا لولجيدو يعني ركوع صلاة ويؤتون وحي بحيان الزكاة وي بحيان والحال زكاة بحيان هم أيغو راكعون أي ركوع سيهن أيغو صلاة كجرة أي زكاة بحيان ومركز الزكاة أصلا مركز لغو فسره بمعنى صدقة التضوع صدقة السنة واحد مركز لغو فسره ركوع على لغو فسره ركوع حقيقي إن لولجيدو محايا لي آيات محل رأسه ونزول كذا مركز روحوها سيدنا علي سوى تكنا هي صلاة سنة سوى تكنا هي أيان المسكينة مسجد كاستاغي ومركز وحويدي سنة يضطي المؤمنين تاها مركز سوى سيدنا علي سوى ركوعي كجرة ركوعي سوى كجرة ومسكين كان لين عيسى تاغي وفراتي فريري وجري أيو تاغي اللي سوى تلمامي إنه لبح فراتي قاس تلمامي مركز صلاة دي سادنا واسكسوا إلهي مركز كو أماني سبحانه وتعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون ويؤتون الزكاة وهم راكعون سوى ركوع كجر وتاغي فراتي يعني لبح عمل ولجينا وإشاري مسكين فراتي ولبح واسكتي إلهي كو أماني سبحانه وتعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون مركز تولي قاس وإلهي سبحانه وتعالى ويرسد حدنا ولي إذن إلهي رسولك سيداتك مؤمنين تعاه محا نتيجة لقاه لوي مركز إلهي رسولك iyo muuminiinta hadii weli laga dhigto oo ayaga lagu xiraado maxaa faa'iidada laga helayo Ilaahay noo sheegay subhanahu wa ta'ala waman yatawalla Allah Ilaahay qofkii weli ka dhigta wa rasuuluhu Ilaahay rasuulkiisana weli ka dhigta walladina kuwina weli ka dhigta aamanu Ilaahay rumeeyay fa inna xisballahi Ilaahay xisbigiisa hum xisbigaas ayaga umba alghalibuna noqonay kuwa raayay wuxuu helaa qalabo isaguna bas wa faa'iidadii la raadinayay wuxuu helaa isaguna qalabo yani maadaama tawalliga gaalada kuwa qalbiga amraadul qulub ay uga jiraan ay u xiriirinayaan ama laydinka raaya haddaadnan xiriirin gaaladan ama laydinka raaya ama dacfi idin imaada ilaahay wuxuu leeyahay qofkii ilaahay rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam iyo dadka muuminiinta saddexdaa weli ka dhigata waxay gelayaan xisbiga ilaahayna iyaga qaalib noqonayo xisbiga ilaahay iyaga qaalib noqonayo يا أيها الذين آمنوا كو إله رسولك سرميانو لا تتخذوا الذين كوها كسميسننا اتخذوا دينكم دينتين كسميستي هزوا بمعنى مهزوا وحلو جاسه منك دينتين كدغناي واللعبا عيار دين ددك كدغناي كوا سكسميسننا ومحيين كوا دينت عيارتي جاسيسك كدغتي ومن الذين كوي وبيان من تاني وحنكون بيانينا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين كوي اوتوا الكتاب كتابك اللسيي من قبلكم أذنك هرتين كتابك اللسيي والكفار كفارتنا هكذا أولياء كواد حريرسان هكذا والكفار وعطف على الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هو حلوعت في الذين اتخذوا ومن عطف العام على الخاص ما هي كوه هراء خاصة هاي وكوه أهل الكتاب ودينتي كجس جيسايا سجوله هذا نوح إلهي والكفار أولياء قالوا منها كدقننا كوه الحريرسان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوها كسميسننا الذين كوي اتخذوا دينكم دينتينا كسميستي هزوا وحلو جاس جاسه ولعبا عيار دينتينا كسميستي ومن الذين كوي أوتوا الكتاب كتابك اللسيي من قبلكم أذنك ورتين كتابك اللسيي والكفارنا أولياء هكسميسننا كوه حريرسان وحكتنا يسرتنا أتكون ليبتان هكذا واتقوا الله إلهينا كعبسدا وتولي قال جوجية إن كنتم مؤمنين هداتين ضد مؤمنين سيدي مركا إلهي سبحانه وتعالى آياتهم حلية هاي لمن كان يهود ينصارض وحي دينتي نكبلكتين جاس إيا عيار ضد النوع عاسو كلا سيؤحررين يسين الله سبحانه وتعالى دينتا مركا سيدا قاركا oo jeesjees iyo cayaar ay wadhigtaan ayagoo diintooda ku cayaarayo ku jeesjeesaya haddana mas'alo gaar ah oo Ilaahay noo sheegay inay ku jeesjeesi jireen waa mas'alo diinta shacaa'irkeeda masaa'ilka ugu waaweyn ah